da'deedu ay jirta 18 ilaa iyo 19 ayaa lagu xalay qolo dabley ah ay ku xoogeen degmada Calakamiin wareysiyoyinkaas iyo wareysiyoyinka kalena mar dhow ay idin soo deynayna haatanna wararka aan idin kugu hayo qodobadooda waxa ugu door karoon Suqaar ayaa xalay shir jaraa'id qabtay asigoo dhahay wadanka madaxweyne inaan ka naqdo ayaan rabaa markaas anaga waxaan dhaanay Suqaarow maxaa adiga aad damacsan tahay madaxweynenimada oo dalkan adiga ka naqanaysa Soomaaliya waayo Maxamed Maxamuud Farmaajo ayaa madaxweyne ka Suqaarow seerabta Suqaar wuxuu dhahay macnaa madaxweyne inaan ka naqdaan rabaa wadanka Soomaaliya wuxuu dhahay beer iyo busteeki waa saqajaan markuu ugu horeysa sheegata waa isturuba canjeera waa saddexooley muuf waa sixirey wararka ay ugu hayaan maanta intaas ayaa ugu waaweyn war wixii caalamkana waxaan u soo laaban doonaa saacadaheena foodo nagu soo hay 18 ilaa iyo 19 haatanna wararkayga meesha ayaan ugu baxay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh you just live in our program in my agency maadaama arrinka noocaasna aan jeediyo waxaan jeclahay nabiga calayhi salaatu wasalaam in aan ka jeediyo mashcaradeedkiisii qaaska ahayd waxa ugu waaweyn in the name of Allah magaca Allah ayaan xuseynaa anda kambaasneed naxariista guud the most merciful midagaarka ah peace so be upon you to our prophet Muhammad nabigeena calayhi salaatu wasalaam Allah his last messenger naxariis guud iyo midgaar ah korkiisa ahaato I am very glad waxaan ku faraxsanahay to stand in our soor istaaga of the people dadka hortooda all go inkasto it is my first time waqtigeyga ugu horeeyay ay tahay to stand and soor istaaga of the people dadka hortooda so that's as darteeda I want waxaan doonayaa this today maanta in my kalkaluujina afjaro my lecture khudbadeyda about oo ku saleysneed the prophet Muhammad calayhi salaatu wasalaam idaacadaha noocaas ayaan u sheegayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam Muhammad aayadooyinkiisa ayaan maanta xasuusanay alxamdulillah roob waxaan waa noo day xaaladeena mashxaradeentana aad bay u ballaaran tahay maanta I am very delightful this afternoon galabta aad iyo aad u faraxsanahay so I went to kalkaluuj of my lecture khudbadeydana meesha ayaan ku soo afjaray waa mahadsantiin insha Allah ayaan just Are you good to